أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska warma ummadda Soomaaliyeed ee meel walba aad joogtaan. waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo horumar iyo cadowgiino Ilaahay idinka qabto, idinka wax wada barto meel heer sare gaaray. wadankeena wadamada ugu horeeyay Ilaahay ka dhigay nooga dhigo, laakiin dadaalkeenu nooga dhigaya kaligiis ma noqonayo. wadankeena waa inoo baahan yahay marka la dadaalo meel walba la joogo. casharadeenna dhameystiranayna. bismillaahir rahmaanir rahiim. business ganacsi tijara entrepreneur ganacsade taajir trading ganacsi tijara jewelry dahab ama dahable mujawharat accessories qalabyada la gashto waa silsilada iyo dhagaha iyo faraantiga iyo gacanta iyo accessories ama alaabta guryaha la dhigo kaleeto sharaxaad ah. mustalzamaat diamond almaas chain silsila markalen ku ceshanaa. bismillaahir rahmaanir rahiim. business ganacsi tijara entrepreneur ganacsade taajir trading ganacsi tijara jewelry dahab mujawharat accessories qalabyada waxay noqon kartaa qalabkan ay dumarka dahabka ka gashtaan iyagoo ama dahaba ama diamond ama nooc kale ah, laakiin waa dhagihii, qoortii, gacantii, faraantigii. waxay noqon karaan qalabyada oo guryaha lagu sharaxo, dhalooyin oo kaleeto, flower oo kaleeto, birooyin yar oo kaleeto, sharaxaad qurxan leh. mustalzamaat diamond almaas chain silsilad
qalabkan oo dhan hadday noqon lahayd diamond hadday noqon lahayd dahab hadday noqon lahayd kulli waddankeena waa ka buuxaan marka hala dagaalo Soomaaliya gacmahan hala isqabsado waxa la barto teeda kale dadka Ingiriiska joogo is ilaaliya hadda Ingiriiska wuxuu wadaa dadka Islaamka inuu ka qaado baasaboorada laga soo celiyo maalin dhaweed waa kiyar nin Soomaali dilay ninka Ingiriiska ah marka iska ilaaliya is diyaariya qof walba wixii dibad joogo waa inaan diyaar u noqonaa waddankeena ku noqono waddan Islaam wala waddan gaal midku anfacaya male nin walba waddankaaga isku diyaari dadka muslimiinta dhan hoos ay u gurayaan nin walba waddankiisa lagu celinaa Mareykan waa ogeyn arinta in dadka la wado Soomaaliya dib loogu celiyay marka hadda inta la joogo ha laga faa'iideysto waxa la barto sida waddanka inagoo cilmi leen ugu noqono waxa la barto Soomaaliya hana la is ilaaliyo dadka Ingiriis jooga ilaahayna haydan xafdiyo hadday sharad ku soo wadaan shartooda Allah ku celiyo iskana warqaba waxa la barto hal isu tago si la isu dhaamo qof ku dhaamo waxa uu faa'iideeyo hal kala faa'iideysto sidii waxa la isu tari lahaa khayr aan idin rajeynaa meel walba aad joogtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh